waxaan jecelahay inaan madaxsado meeshii laga yimi 40 sano ku dhawaad baa laga joogaa markii Soomaalidu ay hoobad ka gashay markii ciidamadii burbureen markii hubku gacanta u soo galay markii ugu dambeeyna 27 sano ka hor ay dhacday maalinta loo yaqaan qabta ee tilbaha dhulka lagu dhuftay 10 sano oo aan cidina magaca Soomaalida ku hadlin oo cidina meel aaday ka bacdi 17 sano ugu dambeysay maalinba dhagax baa la rogay meel fog baa laga yimi 5 dawladood oo ay ugu dambeysay dawladda hogaaminaya Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ka dhashay 17 sano 3 dawladood ku dhalatay waa Arta waa Imbagati waa Djibouti kale ee labaad iyo laba lagu doortay gudaha إلا يماذا في الصومالية والله هالقله وعلى الصومالي اللي قتاقه وهي هالقنا لك وميل دير لقيمي والضياء دير لا صومري ما كميش أين ما أنت تشوقنا ما هميل فضيد لقيمي وتضرية توصلوا وإسبير سياه ما تشوقنا ميش أين فنين نقاهه وحين تشوقنا ميل وبسيء هيق الفوفكي دولة فدرالكا maamul goboleedyadii ay dhisan yihiin shuruucku meel gaar oo qabiya aan leenahay laakiin aynaan dhaweyn waxa loo baahan yahay maadaama qalfoofka dhisan yahay markaan xooga in la saaro qalfoofka in dhiig iyo dhacaan lagu shubo in maamul goboleedyadu ay shaqeeyaan in institutionadooda la dhiso in iyaga xooga la saaro dalkaana wuxuu ka dhismi karaa oo ka xoogsan karaa haddii institutionada iyo dawlad goboleedyada ay xoog leeyihiin dawlad goboleedyada waxaa laga rabaa inay adeeg fidiyaan oo bulshada geeyaan inay amni sugaan inay dadkooda u dhawaadaan iyo waliba inay dhaadhiciyaan dawladnimada waxay loo dhisan qalfoofkii dawladii sare qalfoofkii dawlad goboleedyada laakiin waxa loo baahan yahay loo gudbo golayaasha deegaanka waa kuwii dadka u dhawaa madaxweynayaal dadkiina ay soo doortay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada la hadlaya iyaga ayaa idin xisaabtamaya iyaga ayaad u tihiin muraayada aad isku eegaysaan iyaga kaliya ayaana idin ridi karaa laakiin waxa loo baahan yahay in hawsha wada jirka ah oo Soomaalidu ay leedahay wada jir ahaan looga shaqeeyo si looga gaaro hawl oo looga wada hadlo amuraha xasaasiga ah ee hor yaala oo hadda suurka qabyada ah qaybsashada khayraadka ka gorgortanka awoodaha waa in la helaa dawlad goboleedyo dhisan oo xoog leh oo garan kara waxa laga hadlayo iyo waxa la isku hayo iyo meesha loo socdo dawlad goboleedka ku xoog weyn baa kuwa loo baahan yahay Soomaalida aynu rabnaa dawladda federaalka Soomaalida aynu dhisanayna waxay ku iman kartaa oo kaliya sida inagu aynu rabno federaalku ma ahayn wax la iska doortay ama la iska hindisay waxa ahayd wax ku timi ka maarmi waa markii shafka dhulka lagu dhuftay oo la kala tagay oo cidna meel aaday waxay noqotay waxa kaliya oo la soo iman karo kalsoonidii baa dhuntay dadkii baa kala tagay waa isu keenidka dadka waa isku kabkabidii dawladda federaalku aan dhisaynaa waxa loo baahan yahay inay ku dhisnaato isu tanaasul isu damqasho isu dabcin ismaqal wala lahaansho baa loo baahan yahay waa waxaan wada leenahay ma dhismi karto dawlad cidi u araysan tahay cidina u sacabatumayso dawladda aan dhisanaynaa waxay noqon kartaa oo kaliya mid la wadaago taa kaliya ayaana noqon kartaa midda aynu ku gaaro mid ka fiican midda aynu haysano ama midda aan higsanayno madaxweynuhu wuxuu ku baaqay wada hadal 28 bisha waxaan jecelahay waxa la isku hayo oo dhaba oo ay tahay in laga wada hadlo miiska la dhigo laakiin waxa ka weyn la eego waxa aan wada leenahay aan wada ilaalino wada jir aan uga gudubno waxa weeye inaan wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo gacmo isqabsi aan uga gudubno ninkii Soomaaliga ahaa ee aqliga lahaa ee dardaarmay wuxuu yiri rag wadayo walaalow wuxuu ku dhama waayay wiil walba ha kaas
waxaan filayaa inaan walaadowda iyo sharciga iyo soomaalinimada aan ku socdo waa mahadsantiin maalmahaas